soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada youtube-kayga cusub ee Somali Scholars University. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato, page-kayga subscribe saar, videogana like saar. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkii ugu horeeyay ee Business Administration. Casharkeeni koowaad ee Business Administration ayaan bilaabaynaa maanta. Business Administration waa maamulka ganacsiga. badanaa wuxuu ku bilaabmaa fahamka asaaska ganacsiga iyo maamulka. Aan si fudud oo cad u sharaxo waa maxay Business Administration. Maxay tahay Business Administration? Business Administration waa barashada sida loo maamulo ganacsi si uu u noqdo mid guuleysta. Abaabulka, hagidda iyo kormeerka howlaha ganacsiga. Ganacsi kasta wuxuu leeyahay ujeedooyin helidda faa'iido, profit waa faa'iido, bixinta adeeg ama badeecad, qancinta ganacsiga. Howlaha muhiimka ah ee maamulka waxaa jira 4 howlood oo waaweyn. Planning. Tan koowaad waa qorsheynta, dejinta yoolalka iyo sida loo gaaro. Shaqaalaha. Controlling. Tan afaraad, hubinta in qorshaha la raacayo. Ganacsiyada waxay noqon karaan ganacsi yar, small business, ganacsi dhexe, medium, corporation. Kheyraadka ganacsiga. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay employees, shaqaalaysiin waa dad. Marka dad ayuu u baahan yahay. Capital. Yacni capital waa lafaha. Macnaha lacagta faa'iido iyo lafa ayaa la kala dhahaa. Marka tii asal aad ku bilowday waa lafaha weeye. Oo tii aad ku bilowday soo saareen waa faa'iido. Marka capital ay dhashaa profit, faa'iiday dhashaa. Faa'iidada capital waa lacagtii asaaska ahayd oo adiga ganacsiga ku bilowday. Sharaxaadeed kuma dheeraanayno, halkaas ay nooga qaato. Equipment ayay u baahan tahay, qalab ayay u baahan tahay. Iskafaaladii aad dhisi lahayd, maxay tahay muraayadooyinkii, hagaajintii, waxaas dhan waa qalab. Marka ganacsi kasto kama maarmo qalab. Maalgelinta ugu horeysa fadhiga ganacsiga waa in qofka qolka uu kireystay ama bakhaar ha noqdo ama qol yar ha noqdo, marka hore qarash baa ka galaya. Qarashkaasi waa qalabka equipment. Marka iskafaaladii dhisideeda maxay tahay muraayooyinkii oo alaabaha la gelin lahaa, waxaas dhan ayuu u baahnaanaya. Marka qalabka waxa weeyaan ganacsiga marka ugu horeyso waa u muhiim. Macluumaad, information, macluumaad ayuu u baahan yahay qofka marka ganacsi sameynayo. Ganacsi baad rabtaa inaad sameyso. Waa inaad ka dhirigsan tahay ganacsiga aad sameynayso macluumaadkiisa. Tusaale yar haddaan ku siiyo. Maanta waxaad rabtaa inaad furato meel oo electronic lagu iibiyo. Si aad u hesho macluumaad meesha electronic lagu iibiyo aad rabto inaad furato, waa inaad kala tashataa dadka u furan meelaha electronigada.